Mucaaradka Suuriya ayaa ku dhawaaqay in caasimadda dalkaasi ee Dimashq ay la wareegeen saacado kadib markii ay ku dhawaaqeen in madaxweyne Bashaar al-Assad uu ka cararay magaalada kaasi oo aan la ogeyn halkii uu Jaani cirib dhigay. Warbixin si toos ah looga sii daayay telefishinka qaranka Suuriya Axadda maanta ah, koox ka mid ah dagaalyahanada ayaa la sheegay in Daalim Assad la riday iyo in dhammaan maxaabiistii ku xirnaa xabsiyada Dimashq laga sii daayay. Waxaan u rajaynayaa dhammaan dagaalyahanadayda iyo muwaadiniintaydaba inay ilaaliyaan oo ay ilaaliyaan hantida dowladda Suuriya, ayuu yidhi hogaamiye ka tirsan mucaaradka Suuriya. Horaantii Axaddan maanta ah, dagaalyahanadu waxay galeen wadnaha caasimadda iyagoo ku dhawaaqaya waa cusub ayaa u barya dadka Suuriya oo madax bannaan, waxayna ku baaqeen in ay soo laabtaan shacabkii ka barakacay dalkan Suuriya. Hadi al-Bahra oo madax u ah xisbiga mucaaradka siyaasadeed ee Suuriya ee dibadda ayaa ku dhawaaqay Dimashq in ay xor tahay al-Assad, wuxuuna u hambalyeeyay dadka Suuriya. Hadal uu soo saaray ra'iisul wasaaraha Suuriya Maxamed Ghazi al-Jalaali ayuu ku sheegay in horay gurigiisii isagoo doonaya inuu la shaqeeyo mucaaradka, isagoo intaa ku daray inuu doonayo inuu hubiyo in hay'adaha dowliga ah ay sii shaqeeyaan. Isla mar ahaantaana, Abu Maxamed al-Julaani oo ah madaxa kooxda ugu weyn ee dalkan, Xayaat Tahriir al-Shaam, ayaa ku amray dagaalyahanada mucaaradka inaysan weerarin xarumaha iyo adeegyada dadweynaha. Dabaaldegyada xorriyadda, goobjoogayaal ayaa ka warbixiyay farxadda Dimashq iyagoo ku dhawaaqaya xorriyad, iyadoo reer Suuriya ay u dabaaldegeen soo afjaridda in ka badan 50 sano oo ay xukunka hayeen Bashaar al-Assad iyo aabihiis Xaafiz oo isaga ka sii horeeyay. Dagaalyahanada ayaa sidayay maxaabiista ku xirnaa xabsiyada Sednaya ee waqooyiga Dimashq, sida ay yeeleen magaalooyin kale oo ay qabsadeen intii ay danab u socdeen 10 maalmood ee la soo dhaafay. Askarta ayaa lagu soo waramayaa in ay hubkooda ku rideen wejiga dagaalyahanada fallaagada ee ka socda subaxnimada hore maanta. Taliska ciidanka ayaa xaqiijiyay in xukunka al-Assad uu dhammaaday, sida ay ku soo warantay Reuters. Isla muuqaalada dabaaldegga ayaa la arkayay saacado ka hor markii dagaalyahanadu ay gudaha u galeen oo ay la wareegeen magaalada Xumus oo 2 saacadood u socday waqooyiga Dimashq iyadoo aysan jirin wax iska caabin ah. Goobta istiraatiijiyadeed ee Xumus waxay ka dhigan tahay in markii dagaalyahanadu fallaagada ay gacanta ku dhigeen ay gooyeen xiriirkii ka dhexeeya caasimadda iyo xeebaha al-Assad. Sidoo kale, xeebaha Latika iyo Tairis ayaa ka mid ah meelihii iyo xiriirkoodii ay jareen dagaalyahanada ama mucaaradka Suuriya.